wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Mudane Xuseen Cabdi Ducaale ayaa maanta xafiiskiisa ku soo bandhigay qorshaha diyaarinta xeer cusub oo lagu maamuli doono kheyraadka macdanta iyo shidaalka dalka. Mudane Xuseen Cabdi Ducaale wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland waxa uu sheegay in qorista xeerkan ay la kaashanayaan khubaro sharci yaqaan caalami ah oo u dhashay dalka Norway. Waxaana wasiirku xusay in xeerkan ay wadaan qoristiisu uu noqon doono mid wax weyn ka tara baahida dhinaca shuruucda ee dalka, isla markaasina uu yareyn doono muranadii ka dhici jiray jiidaha sahaminta iyo baadhista shidaalka laga wado. wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyuhu waxa uu sheegay in xeerkii hore ee jiray uu ahaa mid aan la jaan qaadi karin shuruucda caalamiga ah ee casriga ah ee waqtigan, balse uu xeerkani noqon doono mid casri ah oo la jaan qaada shuruucda caalamiga. waxaana ka mid ah hadaladiisii fadhigii ugu dambeeyay intaanu dhammaan ayaan shirgudoonka la yeelanay shir waxaan markaa ay naga aqbaleen iyagoo aad iyo aad ugu mahadsan in sharciga hore qadiimka ahaa isku jiray macaadin iyo batrool isugu jiray oo really in aan fici karin oo de sharci laga guuray ah oo qadiim ah inaynu markaa la soo noqono ay dawladdu la soo noqoto markaa aynu dib u aqbalo sharci cusub inaynu samaysano. way naga aqbaleen, way noo ajiibeen, markaa sharcigaas waan soo celinay. sharcigii markii aan soo celinay markaa waxaan ka hawlgalay dawladdu iyo wasaaraddu ay ka hawlgaleen in aanu anagoo la kaashanana kala yaqaano caalami ah oo waxaan ku takhasusa inaynu hawshii bilowno oo aynu dalka u samayno sharci xaga kheyraadka la soo baadhitaankeeda iyo ka faa'iideysiga kheyraadka mugteed soo saara. marka anagoo la kaashanayna baarlamaanka gariiqaanka guud ee dawladda hadda maanta ay nala joogaan muxuu ahaa guddoomiyihii guddiga kheyraadka iyo muxuu ahaa deegaanka xildhibaan Saciid iyo member kale oo xildhibaan Mahdi oo isaguna ka tirsan muxuu ahaayay guddiga kheyraadka ee baarlamaanka nagala socda ayaa maanta halkan nala fadhiya oo nagala qayb galaya daahfuraan muxuu ahaa furitaanka bilowga sharci samayntan sharciga batroolka iyo macdanta samayntiisa. sharcigaasi wuxuu ka koobnaanayaa 4 qodob. sharciga ay nala bilaabayaan khubarada caalamiga maanta khabiirka ugu weyn ee looyarka ugu weyn maanta nala joogo oo dalka yimi shalay yimi oo shirkii ugu horeeyay nala qaatay. waxa marka ugu horeysa la sameynaya waxa la yiraahdaa petroleum policy ama hadii ba idmaayo muxuu ahaayay siyaasad ay ka duulayso sharcigu ka duulayo. dabeetana waxa la bilaabayaa sharcigii laftiisii oo petroleum law la yiraahdo. waxa markaa lagu xigsiinayaa petroleum regulation ama xeer hoosaadyadii sharciga ka imanayay ee lagu dhaqmayay waxaana ugu dambeynaya in la sameeyo wax la yiraahdo Oil Revenue Act ama Natural Resource Act oo hagaya marka wax inoo soo baxaan sida yani kheyraadka inoo soo baxay ay magaranaysa loo qaybinayo dalka uga faa'iideysanayo oo aan wax la isku qabqabsanaya aan ahayn oo sharci ka mootay yani inooga yaala ay noqonaysaa. marka insha Allah runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in arrintan maanta aynu daahfurkeeda ku jiraa inaynu magaranaysa ay noqonaysaa arrin muhiim ah oo dalka aad iyo aad u caawisa. waxa kale oo halkaasi ka hadlay gariiqaanka guud ee qaranka Ibrahim Idli waxaanu tilmaamay in xeerkani uu noqon doono mid sees u noqda sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka dihin ee dalka, isla markaasina uu cadeyn doono in kheyraadka kala duwan ee dalka ku duugan ay leedahay dawladdu. sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddi hoosaadka kheyraadka ee golaha wakiilada Soomaaliland Mudane Saciid Maxamed Cilmi. waxaanu sheegay in xeerkan baahi weyn loo qabay, waxaanu xusay in xeerkani uu noqon doono mid wax weyn ka tara sidii kheyraadka dalka looga faa'iideysan lahaa. waxaan wasaaradda macdanta iyo tamarta ku bogaadiyay sida ay u bilowday dejinta xeerkan cusub ee la rabo in lagu maamulo kheyraadka dalka. sidoo kale waxa halkaasi hadal ka jeediyay Master Fed oo ah khabiir aqoon dheeraad ah u leh dejinta shuruucda lagu maamulo kheyraadka macdanta iyo shidaalka kana soo shaqeeyay wadamo badan oo caalamka ah. waxaanu wasaaradda ka caawin doonaa sidii ay u dejin lahayd xeer lagu maamulo macdanta iyo kheyraadka shidaalka dalka.